Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waxaynu maanta bilaabi doonnaa insha Allah taxanaha kun habeen iyo habeen. Daawasho wacan. inta aynu gudagelin daafaha dhiganahan waxaa xog yar oo dulmar ah idinka siinaya kitaabkan iyo waxa uu ku saabsan yahay. Kitaabku waa sheeko la isku khilaafay asal ahaan halka ay ka soo jeedo. dadka qaar waxa ay qabaan inay ka soo jeedo boqortooyadii Saasaan oo xukumi jirtay bilaad Sand waa halka maanta loo yaqaan Hindiya. halka dadka taariikhda wariya qaarkood waxa ay qabaan inay ka dhacday Ciraaq. sidoo kale waxaa la sheegaa inay ka dhacday Masar, laakiin arrinka xaqiiqda ugu dhow uu yahay boqorka sheekada ku socoto ee Shahriyaar oo xukumi jiray meelo qaaradda Aasiya ka mid ah. sheekadu waxaa ku jira qisooyin badan oo caan ah sida qisadii Calaa'uddiin iyo fayduustiisii la yaabka lahaa. sidoo kale waxaa ku jira sheekadii Cali Baaba iyo tuugtiisii 40 ahaa iyo 7 safar ee badmaaxiyiinta iyo badmaaxigii weynaa ee Sandibaad. yaa qoray sheekada? ilaa ay hadda lama yaqaano qofkii asal ahaan sheekadan qoray, laakiin casriga dahabiga ahaa ee Cabbaasiyiinta la soo turjumay markii ugu horeysay. sidoo kale waxaa afka Ingiriiska loo turjumay sanadii 1704. imisa luqadood ayaa sheekadan lagu qoray? ma jirto luqad caalami ah oo aysan sheekadan ku qorneen, waana sheekada loogu akhriska badan yahay adduunka. waxayna ku turjuman tahay luqado badan oo ay ka mid tahay Carabiga, Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska, Isbaanishka, Giriigga iyo Boortaqiiska. waxaa laga sameeyay filimaan iyo musalsalo caan ah. marunbaa sheekada kun habeen iyo habeen waa xaqiiq inuu jiro boqor Shahriyaar la oran jiray iyo xaaskiisa Shahrizaad. waxaa la isku khilaafay in sheekooyinka meesha ku qoran in ay ka sheekeynayso Shahrizaad inay run yihiin iyo in kale. waxay u badan yihiin qaarkood inay khayaali yihiin oo hab aad u macaan iyo farshaxan leh loo qoray. waqti intee la eg ayay soconaysaa sheekadu? waa mid aad iyo aad u dheer, waana mid ka mid ah sheekooyinka ugu dheer ee adduunka la qoray. gabadha sheekada warinaysa ee Shahrizaad waxay ku qaadanaysaa inay dhammayso sheekadan kun habeen iyo habeen, inkastoo buugaagta qaar lagu soo koobay 200 oo habeen. laakiin waxaa rajaynayaa inta ugu badan sheekadan inaan la wadaago oo idin soo gudbiyo. waxtarka sheekadan badi sheekooyinka aynu maqalnay waxaa laga soo dhigtaa dhiganahan. sidaa awgeed qofkii dhegaysta wuxuu ka faa'iidayaa murti zaa'id ah iyo waayo aragnimo xeel dheer. waxaa la sheegaa Ilaah baa xaqiiqda oge inuu jiray boqor ka mida boqoradii reer Saasaan, taas oo dhacdo galbeedka Hindiya. wuxuu ahaa boqor leh awood dhaqaale iyo mid ciidanba. wuxuu dhalay boqorkaas 2 wiil. kan weyn waxaa la dhihi jiray boqor Shahriyaad, midka yar waxaa la dhihi jiray boqor Shaanuzamaan. waxaa dhacday boqorkii inuu xanuunsaday xanuunkii geerida. kadib iskugu yeeray 2 wiil ee amiirada ahaa. wuxuu u sheegay boqortooyada uu u kala qaybiyey oo midba goonidiisa wax uu xukumi doono oo ay tahay in laysku soo xadgudbin. kadib markii boqorkii iska dhintay 2 wiil sidii aabbahood ugu dardaarmay ayuu ay yeeleen. mid kastaba boqortooyadiisii ayuu maamulay, mana laysku soo xadgudbin. muddo marka ay ka soo wareegatay oo aynu is arkin labadooda ayaa waxaa dhacday in boqorkii weynaa ee Shahriyaad inuu u xiiso walaalkii yaraa. wuxuu u soo qoray fariin u sheegaya inuu u xiisay oo ay tahay inuu u yimaado. wuxuu fariintaas u dhiibay wasiirkiisa. boqorkii yaraa wuxuu yeelay hadalka walaalkiisa. wuxuu go'aansaday inuu soo safro. maalintii dambe ayuu soo safray boqorkii yaraa. muddo markuu waddada ku soo jiray ayuu soo xasuustay inuu soo ilaaway hadiyad khaas ah oo ugu talagalay walaalkiisa ka weyn. sidaas darteed dib ayuu u soo noqday. wuxuu qasrigiisa ku soo noqday waqti habeena. markuu qolkiisa soo galay ayuu arkay
arrin argagax leh oo aad uga fajicisay. Wuxuu arkay xaaskiisa oo addoon madow sariirta la saaran yahay. Boqor Shaanuzamaan markuu arrintaas arkay, adduunka oo dhan ayaa la madoowaaday. Wuxuu is yidhi, haddii gabadhan falkan ku kacday adigoo aan weli beledka toos uga sii bixin, maxay samayn lahayd haddii maalmo sii maqnaan lahayd? Markaasuu go'aansaday in labadooda ka takhalluso, ayadoo labadooda soo qabtay kurkana ka jaray. Kadib boqorkii asigoo aad u murugaysan ayuu soo baxay, ayuu soo aaday dhanka walaalkiis iyo boqortooyadii. Markuu u yimid boqor Shahryar, aad ayuu u farxay imaanshaha walaalkiisa ka yar. Si fiican aad iyo aadna ayuu u soo dhaweeyey. Laakiin wuxuu dareemay in walaalkiisa uu aad u murugaysan yahay. Markaasoo u qaatay in walaalkiisa la murugaysan yahay, in maadaama uu ka soo fogaaday dhulkiisa iyo boqortooyadiisa. Kadib boqorkii weynaa wuxuu diyaariyey gaadiid iyo ciidan ilaalo ah oo ugu talagalay inuu ugaarsi iyo tamashliin u raacaan, isagoo ugu dan lahaa inuu kaga farxiyo walaalkiisa, murugadana kana fiido. Maalintii la bixi lahaa ayuu kaga cudur daartay inuu baxo. Boqorkii weynaa iyo kooxdiisii kaligood ayay ugaarsi tageen.